waxaa habeennimadii xalay ahayd lagu qabtay xaflad si weyn loo soo agaasimay hoolka weyn ee hotelka caalamiga ah ee Nuro International Luxury Accommodation and Restaurant ee ku yaalo xaafadda Mayfair oo ay Soomaalidu deegaan ahaan ugu badan tahay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. xafladani lagu qabtay hotel Nuro ayaa lagu maamuusay 51 sano guuradii ka soo wareegatay xorriyadda gobolada koonfureed iyo israaci gobolada waqooyi iyadoona ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika. ugu horeyntii xafladani oo ahayd mid si weyn loo soo maamusay isla markaana dadweynaha Soomaaliyeed ay ku ciidayeen farxad iyo reenreynta munaasabada 1 Luulyo ayaa waxa ka hadlay ganacsada Xaaji Muuse Ganjab oo ah ganacsadaha ugu jeebka weyn ganacsada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika. wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay meel waliba ay adduunka ka joogaan inay ka qayb qaataan xasiloonida dalka Soomaaliya isagoona xusay inuu si weyn uga xun yahay dhibaatada 21 sano jirsatay ee maanta dalka Soomaaliya ka jirta. waxa uuna salaan ku aadan munaasabada 1 Luulyo halkan uga diray ummadda Soomaaliyeed meel waliba ay adduunka ka joogaan isagoona Ilaahay uga baryay inay sanadkan sanadkiisa kale ku gaaraan barwaaqo iyo baraare. xafladda caawa oo Prima Luulyo 1 Luulyo waa 51 sano ayaa laga joogaa markaan xornimo qaadanay haddii aan nahay qaranka Soomaaliyeed 51 sano 31 dawlad baan ahayn ummad dhisan baan ahayn ummad military iyo police iyo waxa leh constitution iyo shacbi iyo dawlad baan ahayn laakiin nasiib xumo waa waxa xaq Ilaahay ka yimid laakiin khaladka Soomaalida askale waxaa dhacday 20 sano oo waxaan ku jirnaa burbur. waxaa isna sidoo kale ka hadlay goobta oday Cabdi Dhaqane Faarax oo kamid ah oday dhaqameedyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika isagoona ugu horeyntii ummadda Soomaaliyeed ugu hambaliyay munaasabada 1 Luulyo isla markaana goobta ka jeediyay khudbad qiimo weyn ku dheehan oo ku wajahan muhiimadda ummadda Soomaaliyeed ay u leedahay munaasabada xuskani 1 Luulyo. guwaaba iyo gabayo goobta laga jeediyay iyo dhawaqa heesta wadaniga ah ee maalinta xorriyadda kadib waxa goobta ay noqotay mid isbedeshay oo dadkii ay wada qiiroodeen waxaana markaasi kadib bilowday khudbadaha iyo ka hadalka taariikhda gumaystaha Soomaaliyeed xilligii uu haystay ilaa iyo xorriyadda markii ay qaadatay dalka Soomaaliya iyadoo markaasi uu ka sheekeeyay Isxaaq Nuur Geesdiir oo kamid ah qurba joogta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Ingiriiska. ما international كان حكومة عد الله حتى شرف بحاله حتى أقوله عد النجوم يسته حتى من نقام قفنا حكومة من نقام. si kastaba ha ahaatee munaasabadan 1 Luulyo oo sanadkiiba mar la xuso ayaa ka duwaneed kuwii hore loogu xusi jiray dalkani Koonfur Afrika sababtoo ah waxay ka dhacaysay hool weyn oo ku yaala hotel uu iska leeyahay ganacsada Soomaaliyeed halka xilliyadii hore lagu sameyn jiray howlo la soo kiray oo iska leeyihiin dad ajaanib ah iyadoona ay caawa ka soo qayb galeen dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johannesburg rag iyo dumarba leh sitayna dharka uu ku samaysan yahay calanka Soomaaliya. Cabdinaasir Soomane, Universal TV, Johannesburg.